السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مدهان وحلاليه كرا هدي أدسكو أركتب بإذن الله تبارك وتعالى. رمضان كان خير كبدن أين كل حجرنا دحديسة ربي رالبك هاي ونكج عليها الدنيا آخرنا وكوك الجارية. على مدهان إسكافيري مك على مدكو وحويه دقيسي القرآن كهذا لا تجعشها وحول بول دقيستنا قرآن أتكتعش وحول بول دقيست هذي هسن نقطة هذي قبيل نقطة هذي شيء كحرير نقطة هذي جيرار نقطة هذي قصوي نقطة وحكلو الله شيء قبا وحاصل من حق إسكتنكتي هذا آدي آدو تعشها وحلا دقيسو دقي مقشوا هذا وتعشها قرآنك وما أنت هذا دقيسن هوسو دعيسي مروجونيسي شركات الدريمي عجسي والول أو ربي واكوش عليها تبارك وتعالى ويا هذا الكيسبات تعشى وهشريسا سيبو سقوط عليه ولا مهم ويتاين دقيشن ويا قرآن كان السجاك وجودته سنة وطلع حق باطل كان ماشوا كاتشر كوش يجي يكذب من هالك أوجب باد بكل يا قرآن كان كريم كقيمة بدن قضى بكلا وحوي ضدك ونكوش على هذا ضدك ونكسن كأمانة إلى يقف مركوش على هذا جبريل بوشيكا جبريل لما رأيته وشيكا محبة دول كان لك يا مرك dadka wanaagsan iyo khayr ku dhawaad jeclaada dadku markay ku amaanayaan ku jecel yihiin khayrkaas ogow ilaah baa ku jecel macnaheeduna maaha inaad kibirtid oo dadka wax gooniya dheertay oo rabbi ka xigtid macnaheedu saas maaha waa inuu ku siyaadaa tawaadu iyo miskiinimo iyo inaad istuhmaysi weli taasina waa muhiim qodobkaas qodob kale waxa weeye imtixaanka adduunyo dii ilaahay ku imtixaamay oo ilaahay baa ku jecel yahay cudurro waxyaalo kale qof ilaahay haduu jeclo way imtixaama waa la tijaabiyaa qofkan daalimka asagoo ba loogiyaa adduunka loo rabo loo sotay dheeraya balaayadna aakhiro halisa loo kaydiya laakiin muuminka ilaahay jecel yahay ibtila adduunka waa la imtixaama waa la yar taabtaa qofkii marka raalli qadarka ilaahay ku noqdo oo rabbi toogo rabbi xaq uu noqdo raalli ahaan shuu leeyahay buu ilaahay yiri qofka caraado argagaxa caroodo yani hadii siyaaniga waxaan ugu dhici karaan si waxaan ugu dhici karaan balaayada ama maxay hebel baa qofka walwalka muujiya low haddaan saas sameeyna waxay ugu dhici lahayn albaabka shaydaanku isku furay waliba carada markuu muujiyo ilaahay wuxuu yiri caru leeyahay qofkaas qodobka kale waxa weeye qofka daacadnimo kuula hadla inaad ka aqbashid waxa uu ku sheegay iyo sunnada rasuulka raacitaankeed sallallahu alayhi wasallam ويا آيات القرآن waxay tilmaamaysaa qofka ilaahay jecel rasuulka har raaco dambigiisa dhanba waa la dhaafaya kaanama dambigaada in la dhaafo waxay ku xiran tahay wadada rasuulka inay raacdo sallallahu alayhi wasallam